kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaanba kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey haddaba maxaa cusub maamulka SSC Khaatumo oo qaaday tallaabo ka yaabisay Soomaalida dhexdeeda dhowr iyo 10 saac ee ugu dambeeyayna siyaabo kala duwan ay u hadalhayeen maamulku wuxuu dacwad ka gudbiyay mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Somaliland taasi oo ay geeyeen maxkamadda dambiyada adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo ICJ waxaa marka bulshada Soomaaliyeed ay isku hayeen dacwadaasi la gudbiyay ee laga gudbiyay mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Somaliland ee Muuse Bixiba uu ka yahay iyo taliyihii ciidankaba ay ku jiraan iyo wasiirkii arrimaha gudaha raggii ugu sareeyay maamulka Somaliland dacwada laga gudbiyay ma la qaban doonaa mise maxkamaddu way diidi doontaa dad badani oo Soomaali ah ayaa waxay u arkayeen arrin dhalanteeda oo ku doodahaya markaasi dacwadan laba qaban doono dacwadan waxba kama jiraan way iska geeyeen sidan ay noqonaysaa haddaba go'aan ayaa ka soo baxay maxkamadda dacwadiina mar hore ayaa la gudbiyay xog cusub ayaana idinka haya qodobkeena koobaad ayaana ku dul istaagi doonaa hadduu alla idmo qodobkeena labaad ciidamada SSC ku sugan gobolka Sanaag war cusub ayay soo saareen maalmihii ugu dambeeyayna arrimo ayaa ka taagnaa magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag dhalinyaro halkaasi habeenna ka hor ku dabaaldegaysay oo u dabaaldegaysay sanad guurada 17aad ee ka soo wareegatay calanka Maakhir State iyo kuwa ka horeeyay dhowr bilood ka hor oo iyagana u dabaaldegayay calanka SSC ayay dhibaateeyeen ciidamada booliska ee maamulka Somaliland ama ciidanka Somaliland police iyo military waa isku mid ah ciidanka Somaliland baa dhibaateeyay oo qaarna waxa way jirdil iyo dhaawac iyo xadhigba u geystay ciidamada SSC war cusub ayay soo saareen digniino ayay soo saareen maanta waxayna waliba joojiyeen oo ay hakiyeen isku socodka ganacsiga ee Ceergaabo iyo deegaanadan kale ee markaasi hoos imaada haddaba bahirgeli doona go'aanka ka soo baxay ciidamada SSC oo ma ka dhaqan gali kara deegaanadaasi awood intee dhan ayay halkaasi ku leeyihiin xagga Somaliland maxaa laga rajaynayaa dhaqaaqyadan iyadana iska soo horjeeda ee ka taagan duleedka magaalada Ceergaabo ayaan iyadana qodobkeena labaad ku dul istaagi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan dhinaca kale guud ahaan aan dul mari doonaa in abaabulka ciidan ee dhinaca Somaliland ay wadaan iyo sidoo kale dagaalada laga cabsi qabo in ay dhinacyada halka furimaha hore ay ku dhaxmaraan iyo jiidaha hore ee dagaalka ciidamadu ay ku wada sugan yihiin isku hor fadhiyaanba waxyaabihii ugu dambeeyay 24 saac ee ugu dambeeyay ka dhacay ayaan iyadana dul istaagi doonaa ee soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay maalin ka hor ayay xubno ka tirsan maamulka SSC Khaatumo ay dacwad ka gudbiyeen mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Somaliland oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi wasiirka arrimaha gudaha Ina Kaahin taliyaha ciidanka Nuux Baaste Macaan iyo xubno kale oo xukuumadda ka tirsan waxaana dacwadaasi loo gudbiyay maxkamadda dambiyada adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo ICJ dacwadaasi markay gudbiyeen laguna arkay iyagoo boorka ku sawiran xubno ka tirsan maamulka SSC Khaatumo oo rag kale oo maxkamadda ka tirsan garab taagan dad ayaa markaasi ka falceliyay oo bulshada Soomaaliyeed ba siyaabo kala duwan kuwa mucaaradka iyo kuwa muxaafidka siyaabo kala duwan bay dhowr iyo 10 saac ee ugu dambeeyay bulshadu ay u qaada dhigaysay waxay in badan oo bulshadaasi kamid ah oo waliba u badan dhinaca Somaliland ay markaasi ku soo celcelinayeen dacwadan laba qaban doono waxba kama jiro igu sawir waaye waan geynay waaye wax dacwada ka jirana ma jiro cidna dacwad kama qabanayso Laascaanood waa magaalo SSC ka tirsan waxa weeye Somaliland ka tirsan waa magaalo waxa weeye lagu wada dagaalamay iyo waxyaabo markaasi ka fog waaqica iyo dastuurka constitutionka maxkamadda adduunka u yaala iyo hanaanka cadaaladeed ee maxkamadaasi ay ku dhisan tahayba wax ka fog ayay saa iskula daba wareeg waliba warbaahintooda taageerta taliska Muuse Bixi ayaa siyaabahaas noocaas oo kala u qaada dhigaysay haddaba maxkamadii way aqbashay gal dacwadeedkii loo gudbiyay ee SSC ay gudbiyeen way aqbashay waxaana rabaa inaan qolada u iftiimiyo hanaanka dacwadda loo gudbiyo hanaanka dacwadda loo gudbiyo ma aha inaan aniga Cabdullaahi intaan soo qorqorto aan u dhiibayo maxkamadda geynaya ma aha markii la soo qorayo iyo marka la qorayo iyo marka la gudbinayaba intaba loo yar register maxkamadda laga yaqaano caalami ah
ayaa waxa weeye waxaan kaa fiirin waxaad soo qoratay waa la turxaan bixinayaa wax nidaamsan baa maxkamadda la geynayaa mana diidi karto way ku qasban tahay inay markaaba aqbasho isku soo duuduub dacwaddii laga gudbiyey taliska musabixi iyo hoggaankiisa ugu sarreeya raggii dhagarqabayaasha ahaa ee xasuuqa geystay ee laascaanood iyo SSC ba dhibaatada ka geystay laascaanood ba sameehe ilaa iyo kaalshaale dhibaatada ka geystay 15 sano ugu dambeeyayba raggaasi dacwaddii laga gudbiyey maxkamadda ICJ way aqbashay waxaana bilaabanaya kiiskooda iyo maxkamadayntooda mar dhowna maxkamadda in waxa weeye loo yeedho ayaa la rabaa oo maxkamadda looga yeedhi doonaa goordhow musabixi oo carcaraya ayaad arki doontaan oo cararayo waxa weye ka dhudhuumaalaysanaya amaleba lawyer waxa weye waqtiga ii dheereeya waqti kale iga dhiga hebel iga dhiga waxa weeye timeka igu dara isagoo leh ayaad goordhow maqli doontaan ragga dacwadda laga gudbiyey intaa aan idiin sheegay qayb kala weheliso bannaanka joogtay iyo qayb laasacaanood ku xidhanba faysal cabdi bootaan iyo taliyayaashan kale ee dhowr iyo 40 qaybo ka mid a ayaa arrintaasi ku eedaysan oo ayagana dacwadda laga gudbiyo maxkamad suga ah maxkamadda cadaaladda ee adduunka ayaana waxa weye la sugayaa in la horgeeyo raggii marka shalay lahaa SSC dacwad waxay gudbini maxay qabani maxay ka yeeli SSC aad moodayseen ma aha SSC nin nabadoon oo odaya uu iska wato allaha u naxariistay cali khaliif galaydh uu meelaha iska watay ogaayeen SSC israacday isin iyo ciyaal dhammaan israacsan bulsho midaysan ah ciidan leh hanaan leh maamul leh kala dambayn leh madaxweyne leh ku-xigeen leh guddoomiye baarlamaan leh guddi fulin leh ayaa meeshaad joogtay SSCda taqaaneen horta doorow ma aha SSCda taqaaneen hore ee marna xagga aadaysay ee kala qaybsanayd horta SSCda ma ahee ku darsada si kastaba dacwadaasaa horta laga gudbiyey nimankii SNM balaaya ku dhacday jab ciidan dhibaato hubkii oo laga qaato meydadkooda bannaanka daadsan ay ka cararaan ceeb iyo maxkamad ayaa la iskugu daray horta halkaasi waa taasoo horta guul weyn bay u tahay shacabka gobolada SSC iyo ummadda Soomaaliyeed ee midnimada jecelba guul weyn oo taariikhiya ayay u tahay dacwadana way asiibeen ilaahay baa waxa weeye haleeshiiyey la garab galay maamulka SSC waa dad waxa weeye iyagu dhagarna ma wadaan khiyaamo ma wadaan cidna duulaanku ma aha dulmi ma wadaane waa dad maamulkooda dadkooda deegaankooda u adeegayo weeye markaad aadan dulmi wadinna ilaahay baa ku garab istaagaya marka guushaasi waa guul weyn oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan run ahaantii horta u soo hoyatay taasi waa taasoo dacwadii waa la aqbalay bishaaro ayaan leenahay shacabka gobolada SSC ilaahay idamkiisa waxaan rajaynaynaa dhamaystirkeeda inta ugu dambeysana inay guul ku soo dhamaan doonto ayaan rajaynaynaa dhinaca kale maalmihii ugu dambeeyay magaalada Ceergaabo waxaa ka taagnaa shaqaqooyin istaba jooga oo ay geysanayeen ciidamada taliska musabixi ayna u geysanayeen dhalinyarada deegaankaasi ee aan ku qanacsanayn systemkooda isla markaana taageersan SSC iyo sidoo kale maamul horey loo dhisay oo maakhir state la yiraahdo oo deegaanadaasi xilligii SSC-du ay dhinacyada iyadana u yaacaysay iyagana waxa weeye maamulku uusan hadda dhismin sidan uusan u dhismin iyadana la dhisay oo calan leh ayaa waayii ugu dambeeyay dhalinyarada la dhibaateynayay habeenkii 26 bishan hadda May sii dhamaanaysa dhalinyaro si nabdoon ugu dabaaldegaya gudaha magaalada Ceergaabo waliba dhinacooda oo xusaya sanad guurada 17aad ee kasoo wareegatay calanka maakhir state ama asaaskiisii ayaa halkaasi boolisku ay la dhex qaadeen oo rasaas nool u adeegsadeen dad ayay halkaasi dhalinyaro ah bay ku dhaawaceen qaarna xabsiga ayay ka buuxeen ilaa 30 dhalinyaro ah ayaa halkaasi ku xidheen kuwa kalena way kasii horeeyeenoo xilliyo ka horeyso dhowr bilood ba jirtay iyadana marar kala duwan bay gudaha magaalada Ceergaabo ay ku dhibaateeyeen maalmihii ugu dambeysayna sidoo kale ciidamo tiro badan bay magaalada duleedkeeda keeneen oo waliba technique wata kuwaasi oo markaasun dee waxa weeye dhaqaaqyo ka waday duleedka magaalada Ceergaabo oo ay ka cabsi qabeen in sidii laasacaanood oo kale ay ka dhacdo magaalada Ceergaabo oo gacantooda ay ka baxdo ayayna taliska musabixi ka baqayeen si kastaba taliska ciidamada SSC war bay soo saareen waliba qaybta gobolka Sanaag war bay soo saareen waxay horta marka koobaad dignin u direen dadka dhaqaaqyada halka ka wada ee dhibaatada wada ee duulaanka wada ee abaabulka wada ee bulshadii sida nabdoon waxa weeye u wada deganayd
kala dilahaya ee dagaalka abaabulaya digniin bay u direen inay tallaabo sharciya ay ka qaadi doonaan hadday jooji waayaan abaabulka iyo dhaqaaqyada ay wadaan. waa taliska musabixiye. waa qodobka labaade waxay joojiyeen isku socodka ganacsiga midka ceergaabo imaanaya iyo midka sii gelaya ama gawaarida sii gelaya waa la ogol yahay ee ganacsiga haddii si waxa weeye waxaan dhibaato amniga u keenaynin ay wadaan, iyadoo weliba ay soo marahayaan kuwa ceergaabo ka soo baxa ee xaggan deegaanada SSC u soo baxo ay si toosa ugu soo hagaagayaan kastamka canshuuraha ee maamulka SSC iyo goobaha la dhigay. kuwa falalka amni darrada wadana hadda waaban idin sheegay, kuwa sii gelaya magaalada sii gelayana waxaa looga digay qolada dhexda u istaagaysa inay baneeyaan oo ganacsiga ay fasaxaan. kuwa la mamnuucay waa kuwa marka kuwa la mamnuucay ee la joojiyey waa kuwa intay Hargeysa ka soo baxaan ceergaabo intay ag maraan aan ceergaabo soo gelaynin ee gudaha u soo gelin ama aan istaagaynin intay toos uga soo baxaan doonaya inay gobolada kale SSC u soo gudbaan. kuwa iyagu waxaa la yidhi jooga waxbaha noo soo gudbin, annagu dekadaan leenahay oo badaan leenahay oo meelaan wax ka soo dejisanaan leenahay oo koonfurtaan u aroori karnaaye oo wax ka soo dejisan karnaaye halkiina naga joogaa le iyagana tallaabo sharciya laga qaadayaa haddii ay sidaas sameeyaan. laakiin magaalada gudaheeda kuwa soo gelaya ee waxa weye bulshada wax u wada halkaa ku dejinaya iyada waa la ogol yahay. digniintaasay soo saareen taliska ciidamada SSC. dhinaca kale ciidamada furimaha hore ee ay isku hor fadhiyaan dhaqdhaqaaqyo ayaa ka socdo oo markaasi aan qarsimo lahayn. cabsi xoogan baana laga qabaa in uu dagaal uu dhex maro SNM iyo waxa weye SSC, maadaama SNMtu ay abaabul soo wadaan welina ay hanjabaado iyo wuxuun iska annaga reer hebela weliba beryahan dambe waxa weye social media kusoo badanaya niman habar jecle la yidhaahdo oo SSC xuduudeeda degoo leh waan iska celinaynaa qarankan difaacaynaa. qarankii dhanaaba habar jeclaa qaatay oo yaa qaatay. waxa abaabulka wadana inta badan waa iyaga. abaabul xoogan oo aan waxa weye indhaha waxa weye laga laaban karin baa soo socdo. SSCna waa u diyaar garoobeen. ilaahay ha kala qaboojiyo, dagaalku wax fiican maaha. ilaahay dagaalka ha kala qaboojiyo, ilaahay nimanka abaabulka soo wada ha garansiiyo dhiigga muslimka iyo waxa weye darajada iyo wanaagga uu leeyahay ilaahay ha tusiyo. ilaahay weliba diinteennu meesha ay ka istaagtay daadintiisa ilaahay ha garansiiyo. dagaal wax fiican maaha, wax lagu ordana maaha. kuma faraxsanin in halkaasi lagu dagaalamo. dhibaato intii hore ay noogu filaato. waxaan leeyahay doorow war dagaalka joojiya, abaabulka joojiya, hajabaada joojiya, hadallada xanafta leh ee bulshada sii kala goynaya joojiya. deegaankiina aad leedihiin idinka isaaq ahaan aad leedihiin cidna inaguma soo socoto. deegaankiina ku ekaada oo hayna anfacaan ayaan leenahay. wixii kasoo korno daawadayaal muuqaaladeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa hadduu alla